sheekh sayladan waxay leedahay waa su'aal kale aad u dheer waa hooyo waxay tiri waxaan ahay hooyo ka xajiday maal iyada u gaara dabeetoodayga ayaa igu yiri xajkayga bixi oo bimacnaa ay weydiistay in aan isagana xajka ka bixiyo arrinka noocaasi xaq igu leeyahay oo xuquuqda ninkayga miyuu ka mid yahay maxaad ugu la talinaysaa sheekh afiiduna wajazaakallahu khayran de gabadhu maalkeeda iyo xoolaheeda iyada leh haddii ay ka bixisana de uu ka ansaxaya ay tilaawaan ka bixinayaa de ajar bay ka helaysaa khayrna way ka helaysaa haddii ay ka bixin weydana de wuxuu xaq u leeyahay maaha maalkeedii weeyaan ama wax xoolaheedii ama de waa dhididkeedii iyada leh waa maalka iyadu lahayd haddii ay tilaawaan ka bixinayaana de ajar bay de ku waana fiicanta waxaana fiican inay ka bixiso haddii de suuragal tahay ajarna way ka helaysaa de maxramna uu noqonaya marka saasaana qurux badanoo xagga talada de inay ka bixiso iyaduna way ka xajisaa maalkeedii sayidkeedii iyo de sawjkeediina way ka bixinaysaa saasaana fiican shareecada in de laga bixiyo hadday suuragal tahay haddii ay tira ka bixin maayana de xaq uma laha ama ku dambaabi mayso hadday tiraahdo waxba ka bixin maayo laakiin waxa qurux badan inay ka bixiso hadday kari karto ama de awood ay u leedahay barakallahu fiikum